And you need to also do the same. I am not giving you advice. But it is only simply to add my voice. We are, as Ethiopia and IGAD, we are absolutely satisfied with the process. I was the new officer in the Ministry of Foreign Affairs when Ibrahim Igal was doing this process in Somaliland. markii Ibrahim Igal Somaliland uu bilaabay arinta Somaliland. I was in Garowe with Abdullah Yusuf when we did Puntland. Wuxuu yiri Abdullah Yusuf baan la joogay markii Garowe la asaasay Puntland. But I assure you, I am a witness, it has never been as complete, as inclusive as Juba. Waxaan idin sheegayaa oo aan idin xaqiijinayaa in labada process halka aan ku soo arkay aysan sida Jubaland loogu dheeyahay ee loogu midaysan yahay aan loogu dhanayn looguna midaysnayn. The beauty of this Juba is waxay ku qurux badan tahay Jubaland waxa weeye it was Igal pushing Somaliland. taas Igal ba Somaliland bush gareynay. It was Abdullah Yusuf who was establishing that administration. Abdullah Yusuf wuxuu asaasay Puntland. But this one, laakiin middan iyada we told the President Ahmed Madobe, waxaan u sheegnay madaxweyne Ahmed Madobe see that madaxtooyada adiga madaxtooyada fariiso. He is not running the process. idin process